maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun dil ah ku riday nin loo haysto weerar lagu qaaday 26 bishii 12 ee sanadkii 2018 xarun uu magaalada Galkacyo ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdulle Sheekh Cabdullaahi Cilmi Yare ninkan oo ay maxkamadeyntiisu ay ka dhacday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaa oo ay dhawaan gaareen saraakiil uu kamid yahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Cali Aadan waxaana maxkamaddu ay ku riday xukun dil toogasho eedeysanaha ayaa wareyntii ka warbixinaya sida ay markaasi u suurta gashay inuu ku biro dagaalamayaasha al-shabaab iyo inta weerar uu ka qayb qaatay mid askari ah oo insha meel dirbaan oo dheena meel dhishigeel insha Allah soo riday marka dirbiga barbaray kan dirbi agtee fadhina sina meesha insha Allah dhishigeel barbaray meesha ku soo gaarayna markaas abad ku dhigay ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaanshaale Sare Xasan Cali Nuur Shoote ayaa ku dhawaaqaya xukunka ay ka soo saartay maxkamadda markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeeraryaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile shabaab Cabdullaahi Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan raacfaan wabillahi tawfiiq maalmihii ugu dambeeyay ayaa eedeysanahani lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Aadan maxkamadeyntiisu ay ka socotay gudaha magaalada Galkacyo iyadoo ugu dambeyntii dhageysiga maxkamaddu la soo gabagabay maalinimadii shalay isla maantana ay maxkamaddu ay ka soo saartay qiraalkii ugu dambeeyay iyadoo ay ku xukuntay dil toogasho Cabdi Fataax Muumin Siine magaalada Muqdisho.